madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maalmaha booqasho shaqo ku joogay boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. madaxweynaha oo ka qayb galay shirkii degdeg ah ee jaamacadda Carabta iyo kii caadiga ah ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa u mahadceliyay boqorka iyo dhaxal sugaha sidii diiradda lahayd ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa. madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya waxa uu kulamo la yeeshay qaar ka mid ah madaxdii dalalka Islaamka isaga oo kala hadlay xaaladda Soomaaliya iyo sidii gacan looga geysan lahaa dib u dhiska dalka iyo la dagaalanka kooxaha Al-Shabaab. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo saakay ka soo kicintamay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jeddah ayaa dhowr saacadood ku soo hakaday magaalada Addis Ababa halkaasi oo garoonka Bola ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. wada hadallo ay yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa xoog lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo sidoo kale la soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka. qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga amniga iyo nabadda Afrika. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa wareysi uu siiyay laanta afka Amhariga ee VOA waxa uu ku sheegay inuu xal u raadinayo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana uu kala kaashanayo dalalka Eritrea iyo Koonfurta Suudaan. madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqday mid mar kale dhexda ka galay qorshaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee lagu doonayo in xal looga gaaro khilaafka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo ku qotama muranka ka taagan ee badda. sanad gudihiisa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa Addis Ababa u safray tiro 3 jeer ah waxaana lagu xusuustaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray inuu ku eedeyn jiray madaxdii jirtay xilligaasi safarada ay ku aadaan dalka Itoobiya.